chapter 1 Soomaaliya qaadan chapterkii koowaad oo soconayo practical ayaa doonay halkan yaala waxaan qaadanay haddaan biliga ka bilaabo sad xasuustaanba waxaa jirtay shift farming wax la yiraahdo settle farm soo xasuusta markaa halkan hadda wax monochrome yaa ku yaala beertana monochrome maaha kana monochrome maaha oo monochrome maxay markuu beerta oo ka baagaraya ama ka baxo kaliyata hal waxa uu ka baxanay Soomaa beerta laakiin maxaa cad inay tahay markaa mixed crop Soomaa wax dalag kala duwan oo fara badan ayaa ku yaala abaaro markay ahayd 8 subaxnimo ayaa waxaan ka soo baxnay magaalada Jigjiga annagoo u soconay beeraha iyo warshadaha ku yaala magaalada Dhagaxle waxaana soo kaxaynay ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe sare Cumar bin Khataab baraanjigiisa koobaad xaafadda shanaad gaar ahaan fasalka 11aadka ciwaanka ama ujeedada aan soo baxnayna wuxuu ahaa in ardayda 11aadka maadaama ay dhigtaan maadada beeraha in faltusmeed lagu soo sameeyo beeraha iyo warshadaha Dhagaxle ku yaala faa'iido badan oo maxaan ku dhahay aad muhiimana ardayda way ka qaateen beerihii iyo dhirtii kala duwanaa waxaana nala socday oo safarkan ugu heliyay macalinka maadada dhiga macalinkaas oo si qoto dheer ugu sharxay wixii uu sida tiyariga ugu dhigayay in ay u qaataan maxaan ku dhahay si muuqaal ay u arkaan oo maxaan ku dhahay faa'iido badan ardayduna ay ka heleen macalinkuna si qoto dheer ugu sharxay marka waxaan isleeyahay ujeedadii iyo hadafkii aan soo baxnay mid aad guul iyo ulab u ahaa iyo wanaag fara badan leh waxaan rajaynaynaa ardayda aan soo saaray dugsigan ka soo saaray in ay midho badan iyo faa'iido badan oo maadadaas la halmaanta inay ka heli doonaan wixii hadda ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa inaan marar kala badan oo kala duwan aan ku soo noqnoqono muhiimadaan imanay meesha waxay ahayd inaan beerahan theory-ga u qaadanay iyagoo practical aragno iyo inaan warshadaha waddankeena ka jira ama gaar ahaan gobolkeena Soomaalida ka jira inaan aragno say wax u sameeyaan ka soconaa dugsiga Cumar bin Khataab gaar ahaan baraanjiwan waxaa ujeedada aan halkan u imaanay waxa weeyaan inaan maadada agriculture-ga beeraha biyaha waraabka in aan intaas oo dhan ka qayb qaadano sidoo kale socdaalka aan bartan u imaanay waan ka faa'iidnay wax badanna waan kala baranay gaar ahaan dhulalka soo marnay beeraha waa soo marnay warshada waa soo marnay in kasta waa soo faa'iidnay wax kaste beeraha iyo waraabkooda waxaan ardayda dhigataa dugsiga Cumar bin Khataab ee ku yaala Sharaamiste anigoo ardayda kamid ah oo maantana loo soo bixiyay si aan u soo aragno waxyaalo kala duwan oo beeraha ku saabsan taasoo ka faa'iidnay waxyaalo badan oo hore aan u soo arki jirnay laakiin cashiraa ku soo dhiganay laakiin imika iyagoo practical aan arkayna waxa maanta igu xasuus badan kastoo beer hore aan soo arkay warshadaha iyo caagada si loo sameeyo sidii loo bahaleynay loo balastic garinay iyo siyaabihii loo sameeyay oo dhan aan aragnay waxyaalo fara badan sida dhir beerana la baray sida maadaama oo eega ilifanahay uu nagu cusub yahay agriculture-ka nala barayay unit 2 oo dhan waxaan ku aragnay practical ahaan sida mixed crop monocrop
waxyaalo fara badan baanu aragnay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan soo marnay shirkadda Minada ee biyaha soo saarta